soo dhawaada saaxiibayaal kanaalkiini waaye maalin kale qurux badan weeyaan waxaan tegi doonaa meel loo yaqaano industriga oo ku taalo Dardaba waxa mara jidka tareenka kolba saa u taqaanaan aniga jidka tareenka maalinkii ugu horeysay Dardaba aan tegi doono waxay la socdaa walaalkii Maxamed Cumar oo isagu in badan tagay oo marna markii labaad ama markii saddexaad ma oran karaan Maxamed horta waa salaamaya asxaabta meel kasta ay joogaan aniga maaha markii koobaad ee industriga tagi doono waa markii labaad ee industriga tagi doono insha Allah waxaan leeyahay asxaabta ساد لو سوسو عتين كان ولا صار أنت عن هراء عرق مستريجا إنه ما شاء الله صار كنا حتى أيام بس كصوفوني تطبعا أيام صار الركاب ميلا كل دون تجيا بس كي هو كيكوبات لو بتحشو كلا يصير راح يدونا إن شاء الله مركب واحد تيجي تونا لك يو إندستري أو أهمش أين دوني أدنو إندستري هو حمارة جزء كترينكا وانا ميل نقصو ركاب كوي كسوان أين كسو بعدين بوستيتشوي ترين إن شاء الله مركب قاعد دونا ركاب بدنا بس كسو كوريا والدقيان ويسو كوريان كل بقولات دقيسة مركب إن شاء الله واحد لسه عسينية واحد لنا سوسو عباسن وحير بنوجدها حمدي وقوى حبيك هلا حرمين دمر كان كحل ديرو حمدي حق صوريانا حمدي حق صوريانا حيد الدلال جركي وقاوة حبيك حيد الدلال جركي وقاوة حمدي وقوى حبيك والطنبين وحسوا قرني كان والله راح الاندستري يعني بيحوي واحد يسوق ترينكا markay tagay coaster markab kan ku suga inta uu imanayo halkan dadka saarno waa meel la iska yar soo waxaan ku soo beegan anagu mar uu xiran yahay waa soo toonteen maanta ma soo galiyo mana jiro ka way xiran tahay waxa soo yiri doona wadada iyo barta laga raacay tareenka barta maro ina masha حبيك حيد الدلال جركي وقاوة حمدي وقوى حبيك تصويره محي معني صوران بنقلنا يعني تصويره صور بتجلسان معاه نميا مقعد محو حوالي هذه انا شرماك هذه انا حبيبي كل سومالي بتي مين تبيني مجري حاجات كشان مدودي عرفت المشي شو باشان تجين صور بيكو قليان marka sawirkooda YouTube-gooda ku qaataan way ka tagayaan صاحب حبيجيس جعيل كور حلال إلا حاوي وهذا كور حلال حبيجيس جعيل كور حلال حيد الدلال جركي حيد الدلال جركي وقاوة حبيك حيد الدلال جركي وانت اللي ما انت كنت سانسو سعني وحقا إنا كنت ياسيلا 2 كيلومتر أو اللغة لغما صعودة بجاجنا ما صعودة wadada tareenka markaad iman soo xad ku soconaysaa lug baad ku soconaysaa xagaa iga dambaysaa muddo aad dheer bas saaniyan Maxamed maanta daalimta caadi qaatay daalimta kale ma baani in gaadhaysa 2 kiiloomitir ku dhawaad ayaan soo socday maanta socodkan wuxuu noqon doonaa socodkii ugu badnaayeen ee soconno taa waxa ka horeysay 3 bajaaj baan soo raacnay iyo bas 3 waxa soo raacnay 2 bajaaj iyo bas baan soo raacnay
wadarkasaan meel laba bajaaj iyo bas loo soo raacay dee intii masaafo leeg tahay ugu dambeyn waxaan isku dayi doonaa inaan muuqaalkii ugu quruxda badnaa aan soo gudbino jidka tareenka hadduu ilaahay idmo halkan ninka ku soconnaa waxa weeyaan waddadii tareenka uu mariyey weeyaan hadda halkan ka soo nimidan ka soo dhaqaaqnay waa halkii boosteejada waxa weeyaan halkii boosteejada laga goosanayay rakaab istaageen tigidhka laga goosanayay baasangeriska lagu adeegay dabalooda aragtaan waxaa insha allah cadooduna waa iska sii gebagabo waa laba qaba sii gelaysaa kolka waxaan isku dayi doonaa muuqaal qurux badan inaan ka soo qabanno intayna cadcad u dhicin waxaan dhib kama marnaa kulleydna waa idinka insha allah waxaan isku dayi doontaan muuqaalkan hadduu ku soo gaadho like share subscribe intaaba hanaga ilooyin saaxiib hadda waanu u dhownay halkii muraadkayga waxaan u soconnay waanu soo daalnay balse waan ka dambeeya anigu waan ka hadhay ninkii suu iga cararay waa kaas xogaa iga horreeya mid kale aan idinku daray allahumma salli calaa maxamed barta nimkaan joognaa halkaa wad arkaysaan nimkaan joognaa oo bartu tareenku istaagay bartaa cadceedda ku beegan ayuu ku istaagay halda waxaan soo gaarnay muddo ilaa 2 kilomitir aan soo soconay lagu soo soconay oo soo wareegnay sababtoo oo ay xirneyd halkii laga gelayay marka waxay nagu qaadatay inaan meel kale ka soo wareegno hadda waxaan soo gaarnay jidkii tareenku marayay tareenkii rakaabka sidii kumaanaan soo gaadhin sababtoo ah maanta muu jirin wax tareenay muu soo gelin wax tareenayna muu baxayn marka laga reebo hal tareen oo konteynerada qaada oo alaabaha isku xidha magaalooyinka u dhexeeya Addis Ababa iyo Dirdhaba ilaa Djibouti wad arkaysaan tareenkii waxaan kusoo beeganay xilli aan nasiibkaygu aad u fiicay baan odhan karaa tareenkii muxuuna dhaafay halkan waa jidkiisii Dirdhabaada joogta tareenkana ka baxaa sida dad xoogaal inoo sheegeen marka tareenka la raaco marka la raaco gaadhigana ugu yaraan waxa la socon karaa ilaa 12 saacadood ilaa 12 saacadood meelahaas la socon karaa marka Dirdhaba la joogo halkii markii boosteejada halkaas laga soo goostaa tigidhada ka bacdi maalinku baxayo ayaad la soconaysaa ka bacdi soo raacaysaa ilaa iyo waxay tagaysaa halkii aad u baahnayd iyo magaalada aad u baahnayd safarkan intaa leeg haddaan ugu yaryahay wuxuu nagu qaatay 3 habeen aan Dirdhaba joogo ujeedadeedu ugu weyn waxay tareenka Dirdhaba ee weli aan cidi hore muuqaal ku sameyn inaan isku dayno muuqaal qurux badan ka sameeyno hore waa laga sameeyay laakiin saanu muuqaal ka sii qurux badan aan isku dayno insha Allah inaan ka sameeyno wayna noo suurta gashay tareenku kaliya halkii bajaajtuna dhigtay waxaan ka soo soconay 2 kilomitir ilaa 3 kilomitir baan oran karaa 2 kilomitir baa ilaa 3 kilomitir baan oran karaa run ahaantii muuqaalkan muuqaal aad u qurux badan mooyaan waana muuqaalada kale nooga duwan safarkeenu kan kaliya maaha waxaan tagi doonaa magaalooyinka Itoobiya oo weli hore loo arag aan bacid muuqaal ka soo doortay